السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان أرديد كحرن بيجك سبحانه كريتف ونيدين سلامي أولا إلهي بقى مهات اسكالي إن ما أنت عشر كينو حوكو سابسين هاي سيدي بقى لو سميا بوستر فيسبوك كفر يعني انتي نبضان وحان عرقني فيسبوك مركا قلنو إن بروفيل كقفكة وحا كسريا كفر كاس أيان ربنا ما أنت أنا سمينا إن شاء الله إن intaan u guda galin cashirka waxaan si sharaf leh kaaga codsanayaa inaad subscribe aad noo saartid page-ka aad baad mahadsan tahay okay keena marka u horeyso waxaad tegaysaa illustrated-kaada tegaysaa illustrated-kaada markaad tagtid meesha ay ku qoran tahay new document aad tegaysaa dib cabirkaada ayaa soo qaadanaysaa cabirka waxaan ka dhiganaynaa pixel bilaca waxaan ka dhigan doonaa 820 joogana waxaan ka dhigi doonaa 312 okay halkan meesha ay ku qoran tahay halkaas waxaan ku qornaynaa Facebook halkaas waxaan ku qoran doonaa Facebook cover ilaa waxaan nashqadeyn rabno waa Facebook cover okay markaan saas u nashqadeyno intana CR-keedka ka bedelan doonaa waxaan ka dhigan doonaa RGB ka dhigan doonaa insha Allah kadib create oo sameeyo leenahay document cusub okay marka horeyso markii noola sameeyo documentigeena cusub shaqadeena ugu horeyso waxaan ka bilaabeynaa in logodeena kalaradeeda soo qaadano logodeeda kalaradeeda waa kuwana labadan kalar ayaan rabaa inaan ku shaqeeyo insha Allah labadan kalar isu koobiyaa leeyahay inta ii keen halkan markii lii keeno shaqada ugu horeyso waxaan ka bilaabi doonaa shaqadeynta qoraalka iyo sawirada oo iska fudud yihiin oo iska soo galgali weeye laakiin waxa horta ugu muhiimsan oo waxay tahay inaad ku horumartid waa shaqadeynta weeye okay marka ugu horeyso kalar baa ku shubanayaa rectangle baa soo qaadanayaa waa ku jiidiyaa ilaa halkaas kana lacag la ekeysiinayaa kan baa la ekeysiinayaa marka la ekeeyo waxaan tegaynaa id roofkini kalarkaas baa kili ku siisanayaa kadib kilig markaa ku siiyo kalarkaas waxaan leeyahay center aan leeyahay kadib waxyar iga fogeeyaa leeyahay oo halkan oo kale ila ekey okay markii sidaas oo kale oo la ekeeyo waxaan sameysanayaa kalarkan inaan maxaa BB ka dhigo kalarkan yacni qafiif inaan ka dhigaa aan rabaa waayo hadda saaid weeye sideen qafiif aaga dhigayaa meeshan opacity-ga tagayaa waxyar oo qafiif iga dhigaa leeyahay ilaa halkaas oo kale okay saas oo kale markaa u sameyno log iga xiraa leeyahay Ctrl 2 waxaan sameynayaa inaan tago object kadib log aan tago selection 2 shortcut-kiisana waxaa weeye Ctrl 2 okay markii sidan aan sameyno waxaan soo qaadanaynaa haddana shape rectangle tool aan soo qaadan doonaa ilaa halkaas oo kale ku calaamadeyn doonaa halkaas oo kale ku calaamadeyn doonaa halkaas oo kale markaa ku calaamadeeyo waxaan leeyahay center aan leeyahay kadib Ctrl 0 aan leeyahay oo yacni fit iga dhig kan hadda waxaa aragtaa inay wax ka maqan yihiin kadib right click baa leeyahay unlock aan leeyahay logga ka qaada kan inta laga keenaa kan baa inta laga keenaya kadib Ctrl 2 aan iska leeyahay okay waayahay sidaan markaa u sameyno shape-kan baa waxaan ku shuban doonaa gradient color baa ku shuban doonaa okay waxaan tegaynaa qaybta gradient-ga tegaynaa qaybtan aan rabnaa inaan ku shubno intaan laba mar click siinayaa kalarkaas isoo qaada leeyahay kalarkaas markaa soo qaadatid halkaas meeshaas baa haddana decimal code-kana soo koobiyeysanaya decimal code-kayga Ctrl C aan leeyahay Ctrl C markaas ii dhaho dhinacan baa ku shubayaa Ctrl V aan leeyahay madowgaas ku deysanayaa sababtoo ah waxaan rabaa inaan isdhexgeliyo oo yacni geeskan sababtoo ah logodeedu waxaan ku shaqeynayo logodeedan ku shaqeynayaa geeskana waxa weeye cagaar geeskana waa madow marka waxaan leeyahay wax korkan laga keenayo kala ka dhig meeshaas aan furaya angle-kaas meesha ay ku qoran tahay angle-kaas baa furaya -45 baa ka dhiganayaa okay -45 markaa ka dhigto hadda oo kaas sidaas loo sameeyay sidaas quruxda badan kaliya waxyar waxaan sameynayaa kor iyo hoos baa soo jiijiidayaa okay kadib sidaas sameysanayaa sidaas markaa sameysto Ctrl 2 aan leeyahay oo log igu xir siisan u dhaqdhaqaaqin okay waxaan sameysanayaa shape kala sameysanayaa shape oo yar sameysanayaa ilaa halkaas oo kale sameysanayaa kadib id roofkayga soo qaadanayaa kalarkaasaan click ku siinayaa kalarkaas click markaan ku siiyo waxaan tegi doonaa layer ishas baa furi doonaa kadib waxaan leeyahay shape-kan
hoos mariyaa leeyahay. Markaa ka hoos marisid kadib kor wax yar usoo yara qaadaa leeyahay. Kadib wax yar kor markaa usoo yara qaado waxaan samayn doonaa inaan kalarka wax yar halkan cadaan aan soo yara aadaado wax yar oo cadaan aan la dareemeynin oo kale ilaa intaasoo kale ka dhigto. Kadib intaasoo kale waa caadi masha Allah. Hadana waxaan samayn doonaa halkan centerka in soo qaato elliptical wax yar sidan ugu soo jiido kadib aan dhaho centerkayga saasoo kale markaa u sameeyo wax yar yaree oo saaid weeye wax yar yareena isla kan hadda oo ellipticalka baa koobiyeysanaya. Sidee baan koobiyeysanaya? Control C aa leeyahay, Control F aa leeyahay, kadib hoos yareeyaa leeyahay, kadib kalarkan C, kalarkan blacka ah C. Okay, masha Allah. Sidaas markaa u sameyno waxaan soo qaadan doonaa loogadeeda waxay tahay soo qaadanaya loogadeeda yani hadda subxaan yaa aragtaa soo maaha, subxaayadan baa soo qaadanaya ama waaba iska daynaya oo sidan baa ku samaysan karaa. Okay, waayahay siduusan iga dhaqdhaqaaqin waxaan sameynayaa Control 2 aa leeyahay. Control 2 markaa dhaho oo sidan aan u design gareeyo waxaan soo qaadan doonaa rectangle tool markaan soo qaato oo la hayo shift iyo alt baan sidan usoo drag gareyn doonaa. Markaan sidaas usoo drag gareeyo waxyar iga fogeeyaa leeyahay. Markaan sidaas usoo drag gareeyo oo halkaasoo kale aan keensado geeskaasoo kale aan keensana waxaan tagayaa direction selection baan tagayaa. Waxaan leeyahay wax yar round iisoo geli aan leeyahay, wax yar badnan iisoo geli oo round ah. Kadib round markii la soo geliyo wax yar hoos usoo dhig horta, wax yar hoos usoo dhig. Okay, round markaa la soo geliyo waxaan samayn doonaa iisoo dhaweeyaa leeyahay. Waxaan rabaa inaan laba xabo ka dhigto Control C, Control F wax yar kor usoo yara qaadaa leeyahay, aan badnayn. Kor markii loo soo qaado waxaan sameynayaa stroke baa u bedelayaa. Balse intaan stroke u bedelan horta waxaan sameynayaa color baan ku shubanayaa, kalarkaas baa ku shubanayaa. Kadib kalarkaas markaa ku shubto stroke ugu bedelaa leeyahay. Kadib xawaa ilaa iyo 3 oo kale kadib 3 oo kale marka la siiyo madowgan kalarka waa ka bedelayaa oo waxaan leeyahay kalarkaas iga dhig. Habkaas ayaa la sameeyay. Stroke hadda saaid u badan yahay ilaa iyo waxaan ka dhiganayaa hal oo kale ka dhiganayaa waa caadi masha Allah. Kadib waxaan sameysanayaa red kaliya leeyahay, group iga dhigaa leeyahay. Kadib inaan alt la qabanayaa si aan yani xabad kale aan uga sameeyo alt la qabanayaa, alt drag soo kala keensanaya. Kadib markii sidaas laba xabo aga dhigtid Control D hadda dhaadid waa badanayaan mujda Control D waa badanayaan. Sidaas markaa u sameysid aan hadda 3daas xabaan rabaa, 3daas xabaa qabsanaysaa sidaana u halid garinaysaa. Kadib waxaa leedahay kor ma iga sameeyeen ha. Okay, wax yar intoo kale keen leedahay marka halkaasoo kale keen. Okay, haddana waxaan soo qaadan doonaa angle tool soo qaadan doonaa ilaa halkaasoo kale oo rabaa, ilaa halkaasoo kale. Kadib markaan madow baa ka dhigan doonaa la socya. Kadib markaan madow baa ka dhigan doonaa. Okay, madow markaa ka dhigno hadda madow kuma soo baxaayo. Cagaarkeeni aadayna marka cagaarkeeni hadda markaan cagaarka ah cagaarkaas buu ku soo baxaya. Okay, wax yar hoos usoo jiida leenahay, wax yar hoos usoo jiid markaa dhaamo intana kasoo yaree wax yar direction selection wax yar round soo geli wax yar badnayn. Okay, laba xabo sameey Control C, Control F. Kadib geesaha usoo yara bixi wax yar, geesaha usoo yara bixi. Waxaa sameysaa inaad tagtid layer kadib shape hadda kan ka hoos marisid kalarka black ka dhigtid marka si aad u dareentid isbedelka. Okay, kan dambe shape dambe black ah waxaan sameyn doonaa inaan stroke opacity-ga qeyb ka dhigo. Okay, saas la rabnaa masha Allah, qaab qurux badan weeye hadda saasoo kale rabnaa. Kadib waxaan sameysanayaa inaan wada doorto aan dhaho group iga dhig. Kadib haddana laba xabo ka dhiganayaa waxaan leeyahay alt la soo qabo oo halkaasoo kale iga Control D si uu laba xabo ugu noqdo geeska kalena la geeyo. Okay, waxaan sameysan doonaa shape-kan iyo kan baa isla dooran doonaa. Waxaan leeyahay rectangle-kaas centerkiisa hala sameeyaan leeyahay mujida centerkiisa caadi loo sameeyay. Haddana labadan baa sidaad ku sameynaya kaas hala sameeyaan leeyahay centerkiisa oo la sameeyay. Haddana labadan baa isla dooran doonaa kan centerkiisa hala sameeyaan leeyahay
ولا لا سمي ما شاء الله. اوكي شقديني waa wadnaa ما شاء الله qaab qurux badan ayaan u wadnaa qoraalkiyaa galeynaa insha Allah. waxaan sameyneynaa waxaan tegaynaa tape table يعني qoraal la rabaa inaan ku qoro halkan oo kale waxaan ku qoran doonaa logo design oo ku qoran doonaa logo design. fartaan isticmaali doono waa Robert inta badana fartaasaan ku shaqeeyaa ما شاء الله waa far aad u qurux badan soo jiidasho leh dhinac walba kaa kaafin karta runtii. waxyar iisoo dhaweeyaa leeyahay si aan u arko meesha shaqada iyo sidii shaqada u socoto. okay halkaas oo kale markaa geysto waxyar geesahan iga soo dheereeyaa leeyahay oo sidaas oo kale iga soo sameey kadib centerka iga yeelaya kadib kalarka waxaa sameysaa kalarka cadaanka iga dhig sababtoo madow haddii ka dhigto iskuma soo baxayaan wixii. okay kan la soo koobiyeyso oo halkaas oo kale i keen kadib control delete inta waxaa ku qorataa video editing ku qoro video editing markaa ku qoratid geeskaas oo hadda kaaga batay irogaada sidaan soo geeskana usoo bixin doontaa kadib waxaad dhihisaynaa okay kan u dambeyso waxaan ka dhigan doonaa full brand okay ما شاء الله full brand ayaa ka dhigan doonaa geeskaasaan aan u bixin doonaa. okay shaqadiina qaab qurux badan ay u socotaa ما شاء الله. okay geeskan ayaa waxaa noo dhiman inaan soo gashano sawirkeeni rectangle tool aa soo qaadan doonaa ilaa halkaas oo kale ku calaamadeysan doonaa intaas oo kale markaa ku calaamadeysano waxaan sameyn doonaa inaan tago direction selection markaa tago waxaan leeyahay sidaan oo kale igu soo yaray macnaha. okay kan laba xaba iga dhig control c control f kadib stroke igu bedel sababtoo ah kan hadda sawir aan rabno inaan soo gelino isaga noo door si aan sawir usoo gelino waxaan tegi doonaa draw inside file aan tegi doonaa haddana beliisa sii tegi doonaa sawiraantiina meesha noo yaali sawir ka mid ayaan soo gashan doonaa insha Allah. okay hadda sawirkaan aan iska soo qaadanay okay sawirkaan hadda xagga u jeedaa waxaan rabnaa inaan geeskan usoo jeedino asigoo sidaan waxaan sameyn doonaa right click inaan dhaho transform aan tago kadib reflect aan dhaho cagsi iga dhig kadib waxaan sameyn doonaa sidaan waxyar waa yareyn doonaa maadaama hadda oo dee sawirka aad u weyn yahay markaa yareyno intaas oo kale aan ka dhigno waxyar noo soo dhaweeyaa leenahay si aan si fiican uga aragno kadib waxaan sameyn doonaa inaan geeskan waxyar usoo badino halkaas oo kale masha Allah normal ka dhigayaa. okay waayahay sidaan markaa u sameyno group iga dhig masha Allah qaab qurux badan aan shaqadeena u wadnaa. halkan baa waxaan soo gashan doonaa iconadaasna waxaa ka heli doontaa freebie oo kale waa ka helaysaa xitaa printerskaada waa ka helaysaa aniga hadda waa ii diyaarsan yihiin u baahan tahay inaan iconada aan kuu soo diro ayagoo badan kaliya qaybta community ii soo dir igu soo qor aniga kuu soo diri doonaa insha Allah qaab qurux badan waliba. okay waxaan soo qaadan doonaa hadda graphic designerkeeni wax ka turjumayo kale kana iska soo qaadanaynaa maadaama hadda muuqaalkana oo inuu dheeraado aanan rabin kaasba iska soo qaado kadib markaan soo qaato kale intaa soo diragalan doonaa kadib waxaan sameyn doonaa inbindi kadib waxaan sii tegi doonaa hadda sawir waa shay waan rabnaa inaan u bedelano kadib waxaad tegaysaa meesha qoran tahay image trace kadib kaasaad dooranaysaa kadib inbindi aa leedahay hadda shape waaye gradient aan tegi doonaa kadib qaybtan weliba qaybtan horeyso waxaan ku shuban doonaa kalarkaas kalena qaybtan horeyso kalarkan ugu shub qaybtaas kalena waxaan ku shuban doonaa madowgaas kadib waxaan dhihi doonaa angalka -45 xagga geeska si laga keeno kadib saa markuu kuu noqdo kale waxyar waa iska yareynaysaa soo qaadanaysaa marka inta kale dhiganaysaa haddana waa yareynaysaa marka waa iska yareynaysaa okay ilaa halkaas oo kale leedahay kadib qabo shift la qabo kan kale la qabo kan centerkiisa la sindhe marka masha Allah qaab qurux badan centerka lagu sameeyaa. okay waaye haddana waxaan soo qaadan doonaa video editing iconadan la iska soo gelgelinaa waxa dhibaato ma lahan haddaad u baahan tahay website dhan oo waxaa jira qaabilsan weliba qaab qurux badan ah kadib koramaada tegaysaa waxaa ku qoraysaa
printers oo kale ku qoraysaa. Website badan jira oo laga helo icon walbaad ka helaysaa. Aan hadda video editing oo kale kan iska soo qaadanaya. Kan iska soo qaadanaya. hadda sidaan sawir wey shay baan rabaa inaan bedelo. Marka horeyso waxaa leedahay inbindi kadib image trace imaanaysa kaasaad dooranaysaa. hadda shay uu ku noqday kadib automatically id roofkaad soo qaadanaysaa kaasaa click ku siinaysaa. click markaa ku siido colorkiisa la siinayaa. colorkiisa markaa la siiyo kale isku color bay noqonayaan. waxay yaree shift la qabo shape-ka dooro shape-ka mar laba dooro si yacni centerka isaga lagu wasimo. hadda mujida centerku ku yaalaa. okay haddana full brand ayaa iska soo qaadan doonaa. full brand oo kale iska soo qaadan doonaa. gacmahan oo kale ba iska soo qaadan doonaa full brand. maadaama hadda muuqaalkeena inuu iska koobnaado kaliya anu waxaan design gareynaynaa le Facebook cover. Facebook coverna inta badana shaqada oo waxaa laskiga design gareystaa le shaqada yacni qofka markuu sidaan Facebookaada usoo galo inuu arko automatically isagoon gudaha u galinbo brandingkaada wuxuu ka hadla ama Facebookaada waxyaabaha oo asaasiga u ah oo waxyaabaha lasoo dhigo kaliya. okay saas markaa sameeyo shift la qabanaya haddana kaasaa la sii qabanaya kadib waxaan leeyahay centerka gey. okay waxyar iisoo dhaweeyaan leeyahay si aan geeskan iyo geeskan oo la simo halkaasoo kale ka dhiganaya dhib malahan waa caadi. okay maasha allah qaab qurux badan hadda u wadnaa shaqadeena. okay hadda waxaa noo dhiman halkan oo kale inaan magaca ku qorto. okay halkan oo kale waxaan iskaga qoran doonaa engineer hakad cabdi engineer cabdi. okay kadib farta bold waa laakiin black ayaa ka dhigan doonaa. kadib waxyar waa soo weynaysanayna noo soo weynaya leena halkaasoo kale kadib engineer cabdigii le lasoo qabo halkaasoo kale kadib waxaa igu qortaa naqshadeeya caalami ah. waxaa jeceshahay waa ku qoran kartaa kadib wada dooro blacktan waa ka qaadi doonaa waxaan ka dhigi doonaa angular kadib fontska oo kale waa yaran doonaa ilaa waxaa ka dhiganaynaa 18 oo kale xitaa waa caadi. okay sidaas oo kale markaa sameyno baa kalarkeeda waxaa kasoo dhigan doonaa kalarkaas cadaanka oo kale. okay kalena waxaa kasoo dhigan doonaa maadaama haddaan cagaarna aanan doorin karin. hadda cagaar haddaan doorto lama arkayo madow haddaad doortan waa yara madax laakiin waxaan sameyn doonaa kalarkan cagaarkan soo dooran doonaa oo nooc kale nashqad kale. waxyar waxaan leeyahay halkaasoo kale ka dhig halkaasoo kale maasha allah qaab qurux badan oo sameynay. hadda waxaan sameyn karnaa oo kale caalami oo kale inaan sidaas dhahno oo dhinacna oo soo badino kadib halkaasoo kale aan dhigno kadib aan soo yara weynayo hadda waa sameyn karaa kadib hoos oo soo dhigno waxyar iyo noo yarayde maasha allah kan waxaa halkaasoo kale noqon maasha allah. hadda shaqadeeni waxay kusii dhawaanaysaa gabagabo. loogadeena ayaa soo qaadan doonaa si aan geeskaas u dhigano. loogadeena waa tanaa copy aa soo dhahanayna halkaasoo kale keensanayna kadib control v aan leenahay kadib waxaan sameysan doonaa inaan yareyno maadaama hadda ay saaid u weyn tahay waa iska yareynaynaa halkaasoo kale dhiganayna halkaasoo kale. hadda marka Facebook oo kale hadda marka SRT oo kale maasha allah mid aad u qurux badan ay ku noqonaysaa. haddana feelaa tagayaa si aan usoo qaato falaar baan soo qaadan doonaa. falaar markaan soo qaadanana hamoogaanun oo kale halkaasoo kale iskaga qornaynaa falaar iska soo qaadanaynaa maadaama hadda cashirka uu gabagabo kusii dhow yahay. falaartaan iska soo qaadanayna falaartaan markaan soo qaadano kale waxyar oo kale halkaas u soo jiidaynaa kadib waxaan sameyn doonaa inaan dhahno inbindid kadibna aan shape u bedelno. shape markaa u bedelnana waxaan sameyn doonaa kalarkaas siin doonaa insha allah. kalarkaas markaas sidoo kale noo yareeyaan leena hadda marka hadda la yareynayaa marka la yareeyo kale halkaasoo kale dhig kadib youtube noo soo qaado halkaasoo kale waxaa ku qortaa moogaan subxaanyo creative. okay maasha allah qaab qurux badan waaye. kadib waxaa sameysaa halkaasoo kale xitaa iska dhig waa caadi oo waxaa sameysaa wada dooro kan la sinde hadda adkaas la sin haddaan dhahno okay maasha allah qaab qurux badan waaye. kaliya creative-kana waxaan sameyn doonaa inaan kalarkan siino subxaanyo creative maasha allah
qaab qurux badan waaye. Waxaan isku muuqdaana fiican. Okay, hadda waxaa noo dhiman halkan oo kale inaan iska soo qaadano icon-no, halkaana lambarkiina aan soo gashano. Okay, intaas bis aa noo dhiman. Okay, waxaan tegi doonaa Blaze markaad tagto waxaan iska soo qaadan doonaa icon number ah. Icon number iska soo qaadan doonaa. Balse intaan icon numberka aan guda gulin iconadaana soo qaadan doonaa oo social media loogu tirigalay. Hadda sidaan weeye, sidaan hadaan dhaho waxa dhacaya fiiri. Masha Allah, qaab qurux badan. Kadib inbindi aan leeyahay. Inbindi markaan dhaho xeer yar ayaan leeyahay oo halkaas oo kale igee, halkaas oo kale igee. Kadib control 0 dhe, yani si fid lagaaga dhigo xeer yar weli. kadib haddaan kalarkan ku shubno sidaas uu noqday. Masha Allah, qaabkaas quruxda badan uu noqday. Okay, soo qaado qoraalka. Halkan oo kale waxaa iskaga qortaa join use iskaga qoro use. Kadib labadaas calaamo halkaas dul saar. Halkan oo kale sidaas yeel. Kadib kan le alt qabo oo halkaas waxaa ku qortaa Subhana Creative ku qoro Subhana Creative ku qoro Subhana Creative markaa ku qortid yaray xirkan intuu soo baxay. Okay, Subhana Creative kan lesson. Okay, tan waxaa sameysaa taas ka dhig maadaama hadda joined kan waa caadi saas ku tiso. Waxaan sameysan doonaa Subhana Creative baan kalarkan ku shuban doonaa. Subhana Creative kalarkan ku shuban doonaa. Ama cagsi aan sameynayna kana waxaan ku shuban doonaa kalarkan si uu kalarkan Subhana Creative kan noo ahaado. Masha Allah. Kadib waxaan sameysan doonaa kan baan u dhaweyn doonaa halkaas oo kale sameysan doonaa. Okay, Masha Allah, qaab qurux badan waa wada dooro oo group leh. Haddana telephone numberkiina soo qaadan doonaa. Oo waxaan sameysan doonaa shape yar halkaas oo kale ku sameysan doonaa. Oo xir round soo sameeyay. Kadib waxaa u bedeshaa stroke u bedel. Stroke oo kale markaa u bedeshay halkaas oo kale dhig. Fiican telefonka numberkan oo laga soo xiriir lahaay aan halkaas u soo gashano. Elliptical soo sameyso. Elliptical oo kale markaas aan soo sameysatid. Hadda stroke waaye fill loogu bedel leh. Fill markii lagu bedelo kale oo kale iska dhigo waa caadi, mushkilad ma laha. Kadib waxaa sameysaa Control C Control F dhe. waxaa u bedeshaa horta cadaan iga dhig. Kadib sidaas u bedel leh. Masha Allah, qaab qurux badan weeye hadda. Waxaad noo soo qaadaa telefonkii noo soo qaad. Iconka telefonka hadda noo soo qaad marka. Iconka telefonka hadda iska soo qaadan doona. Cashirkeena waa iska gabagabo. Posterka lagu sheegayo waa nashqadas u horeysa waaye. Waxaan kale iska soo gelgeli weeyo. Marba haddii nashqada aas sameysatay sawirada baba ku dhiba doonaanba insha Allah. Sawirada waa iska soo gelgelinaysaa laakiin hadda kan sawir weeye. Shay baan rabnaa inaan bedelno. Mar walbana waan idin sheegay oo marka shay loo bedelayo waa taqaan. Okay, hadda kalarka waa ka bedeli karnaa. Kalarkan cadaankan oo la rabnaa. Kalarkaas oo la rabnaa. Sababtoo hadda madow iyo wax sidaan ka dhigno. Waxay dhiseen kadib yaray aan leedahay. Waa yaraysanayna halkaas oo kala dhigan doonaa. Kadib sidaan dhe markan log iyo xir control dhe. Okay, kan geeskan ugu soo bixi kan log xir. Waxaan rabaa hadhow yacni sanadkooda inaan isla simaan rabaa. Sidaan aan u doorto shift qabo kan lesson. Soo sidaan shift qabo kaas dooro kan lesson marka center dhe. Hadda Masha Allah waa caadi. Okay, waxaan sameynaynaa marka inaan yareyno zaid oo u weyn yahay oo kale. Yareynayna anagoo hayno shift iyo alt. Okay, marka sidaas u yareyno kale geeskaas oo kale noo geeyay geeskaas oo kale. Okay, Masha Allah. Telefoonadiina halkan ku soo qornayna marka plus 25 Okay, waa lambaradina markaan ku soo qorano bold ayaan ka dhigi doonaa. Sababta aan dhigayna waxa wanaagsan lambarada xaggan laga soo xiriiri lahaay waaye. Mar walba waxaad ogaataa lambarka meesha laga soo xiriirayo waa inay toos u muuqdaa lambarka. Sida hadda toos u muuqdaa. Masha Allah. Okay, sidaas markaas sameyno. Masha Allah, hadda posterkeeni qurux badan oo sameynay. Anigoo waliba step waxyaabo kale sayd aan soo qaadanin.
ما شاء الله بوستركيني وان dhameynay hadda qaab qurux badan aan u dhameynay. Okay, waxaan soo qaadan doonaa burushkaan iska soo qaadan doonaa burush keliya halkaas ka bilaabi doonaa sidaas aan leeyahay. Okay, saas oo kale markaa sameeyo soo kala geysanayaa soo kala geysana waxaan leeyahay kalarkaan igu soo leeyahay saasuu kaa noqonayaa hawlwelin keliya stroke lagu bedele stroke markii lagu bedelo waxaad tegi doontaa effect kadib waxaad tegi doontaa blur gaashaan blur kasii tegi doontaa intaas ka rabnay saasuu kuu noqonayaa hadda masha Allah qaabkaas quruxda badan oo kuu noqday masha Allah posterkeeni hadda waa dhameynay anagoo weliba kasoo bilaabo from start to arj yacni bilaaw ilaa dhamaad anagoo kasoo bilaabnay indhihiinoo shanta ah indhihiinani macalin ah inaan step by step kasoo bilaabnay muuqaalkeena intaasoo ku ekahay insha Allah intaan casharada xiga ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.